أصحابتا السلام عليكم dadka bartayda ku xiran waxaan rabay inaan idiin soo gudbiyo video xasaasi ah videogaasoo aan isbarbardhigayo aan isu keenayo iswaafajin rabo maba iswaafaqayaane waraysiga laga qaaday Yaasiin Farey oo ahaa kusimaha amase ku-xigeenka Fahad Yaasiin oon ahaa qofkii handalgareeyay amase hayay falka faylka amase galka dacwada arinta oo Ikraan Yaasiin Farey iyo Fahad Yaasiin labadoodaba war isku dhacayo ayay leeyihiin kala nooc ayay u hadlayaan ila dhageysta waxaan ku bilaabayaa Yaasiin Farey markaan gudaha kala marka kiiskaasu aniga xilligaas waxaan madax ka ahaa qaybta guud ee isku gobolka Banaadir gabadha Ikraan Taliilna waxay ahayd gabar micno badan ugu fadhiday hay'adda nabadgelyada saameyn badanna ku lahayd hay'adda haddaba sida idiin muuqato Fahad Yaasiin hadalkaas hadal ka duwan ayuu leeyahay wuxuu sheegayaa in aysanba ka tirsanayn lana shaqaynin hay'addaas bal warkiisa aan asagana dhageysano Ikraan hay'addana kama shaqaynin oo may noqonin xubin ka shaqaysa xil umaana magacaabin wax wada shaqaynana nama dhexmarin intii aan hay'adda joogay wax xilana umay qabanin wada shaqayn hay'adda ayadana ma dhexmarin wariyihii oo yaaban ayaa weydiinayo inuu bal la kulmay xitaa hal mar xitaa inay is yaqaanaan marna ma la kulanta waa la kulmay haa dhowr jeer waa aqaanaa hadayada aqaanaa familkeeda aqaanaa hooyada baan aqaanaa laakiin shaqo ahaan hay'adeed umaanan kulmin inay qaybta amniga ee hay'adda niisa ay haysatay qaybta internetka ee amniga cyber security inay haysatay oo xilliga hay'adda joogtay ay booskaas ka shaqeynayso xafiiskaasi sax maaha wariyihii wuu ku soo celiyay weli inkiraada wadaa ila fiiriya waxaan ku iri intii aniga aan hay'adda labada xil ka hayay wax shaqo ah oo loo magacaabay iyo wax shaqo ah oo hay'adda u qabatay ma jirto habeennimadii 26 Juun muuqaal la faafiyay wuxuu muujinayaa gaari cad oo la xaqiijinayo in ay niisa leedahay in gabadhaas lagu qaaday madaxdii ka sarreysayna ay shaqo ugu yeereen hay'adda sida ehelka gabadhu ay sheegeen markaas ayaana rag iyo ruux ugu dambeysay Fahad su'aashan wuxuu rabaa inuu uga jawaabo inuusan wadanka joogin oo xoogaa giliyo miic meesha ma joogin aniga ma joogin alla baa la dhahaa waxaas laakiinse qofkii meesha uga tagay oo mas'uulku ahaa ayaan dib idin sheegi doonaa oo Yaasiin Farey bal aan fiirino soo uga jawaabo habeenkaas aad sheegayso horta wadanka ani ma joogin dalka waa ka maqnaa anigoo maqan bayna waxaa dhaceen haddii si aad ogolaato inaan si tafsiira kugu sheego waana markii u horreysay oo aan kiiskaas ka hadlayo gabadhaas allah u naxariisto mu'aamarad ajnabi iyo Soomaali isla sameeyeen waliba ay Soomaali sameysay baa lagu shirqoolay waxaana looga dan lahaa in hay'adda Soomaaliyeed magaceedana lagu dilo ayadana lagu dhibaateeyo shirqoolkaas dadkii sameeyay dawladda ka tirsan bay ahaayeen hadda rabtida magacyadooda ku sheegi karaa waa ka maqanahay leeyahay laakiin waa ka warhayaa asagoo markaas dabcan dhahayo macluumaadkaas wuxuu ka helay Yaasiin Farey maadaama Yaasiin Farey oo meesha uga tagay bal Yaasiin Farey aan aragno inuu asagana ku raacsan yahay warka oo noo soo sheegay iyo qaabka oo ugu sheegay in ay dawladda ka mas'uul tahay Yaasiin Farey ma la qabaa warkaas ma soo war ka soo horjeedo noo sheegaya you be the judge adiga go'aanso xogta anagaan hayno waxaan ku shaqeynaa waa xogta aan hayno waxa dilay argixisada oo u sababaynayo dagaalkii iyo wadiiqooyinkii naga dhaxeeyay dawladda gaar ahaan hay'adda amniga gaar ahaan hay'adda nabadgelyada ee argixisada waxaa jira dagaal muuqda iyo dagaal aan muuqan oo naga dhaxeeya marka gabadhaas xogta aan hayno waa inay afduubeen kadibna ay dileen xogta aan hayno anaga sidaas aan sheegayso lana wadaagnay madaxda Farey wuxuu leeyahay xogta aan hayno waa inay shabaab dileen gabadhaas waa sidoo Yaasiin Farey leeyahay iyo marka aan fiirino Fahad Yaasiin inuu warkaas la aaminsan yahay maadaama oo Yaasiin Farey reportka diyaariyay maadaama uu qofkii wadanka joogay yahay sida ay labadeeduba isku raaceen
bal aan aragno. You be the judge. gabadhaas mu'aamaradeeda siday u bilaabatay ilaa u dhammaatay waxay shaqo u doonatay xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble. gabadha markay shaqo xafiiska u doonatay meesha ay sugaysa in shaqo la siiyo baa dad mu'aamarad ajnabiyana ka shaqaynayay rabay dalka inay khalkhal geliyaan baa waxay u isticmaaleen gabadha nafteeda in khatar la geliyo nolosheeda khatar la geliyo mas-uuliyadda koowaadna qofka qaadaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waa gabadha maalinta gaariga lagu soo qaadayo waxaa loo ballamiyey wasiir ku-xigeenkii warfaafinta alcadaala oo u kaxeeyey oo ku yiri ra'iisul wasaaraha shaqo ku siinayo maalmahaasi ku noqnoqota xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqo lagu siinaa lagu yiri ayadana shaqo raadaysa ahayd mar waxay ka fikirtay guddiga doorashada inay oo Hirshabeelle inay gasho mar waxay ka fikirtay inay xildhibaan Hirshabeelle noqoto haddana way iska daysay markii dambe xafiiska ra'iisul wasaaraha tir shaqo u doono sidii wax u dhaceen tafaasiisheeda inteeda badan ma raba hadda inaan galo laakiin intaan kuu sheegi karo waxa waaye gabadhaas gaariga lagu qaaday nin la yiraahdo xildhibaan oo la yiraahdo Mahad Salaad oo hadda rabtid feelkiisa mar kale aan furayno ama su'aalo kale ku furayno baa lala kulan siiyey asaga gaari ku qaaday gaarigii baa laga qaaday waxaa la geeyey Daar es Salaam xaafad la yiraahdo xamar ku taala oo dadka magaalada ugu ladan ay degan yihiin gurigaas laga qaaday waxaa la marsiiyey Shabeellada Hoose meel jilib u dhow baa la geeyey halkaasaana lagu dilay nin la yiraahdo Mahad Karatay oo madaxda shabaabka kamid ah operation ka fuliyay oo ay xiriir dhow leeyihiin Mahad Salaad ra'iisul wasaaruhuna aweer buu ahaa wuu ka warqabay dhibaatadaas in loo geysanayana wuu ka warqabay aakhiro ay adduun qofka gabadhaas la weydiinayo waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble farsamada lagu fuliyana alcadaala iska lahaa gacanta fulisayna Mahad Salaad waaye cidda dishayna waa al-shabaab wow warbixin ama macluumaad aad detailed u ah oo aad specific u ah oo aad gudaha ugu jiro oo noo sheegay bal Yaasiin Farey oo sida uu sheegay kiiskan dhan u xil saarnaay balaan aragno inuu asagana warkaas la qabo iyo inuu war kala qabo ilaan labadooda mid baa been sheegayo waana laba qof oo isla shaqaysanay waa labadaba nabad iyo nolol waa laba qof oo madaxweyne farmaajo u shaqaynay balaan aragno you be the judge maadaama anigu aan gobolka joogay taliyaha hay'adana oo wadanka ka maqnaa in aniga la xil saaray inaan taliyaha oo sheegaya waaye waa Fahad Yaasiin yaa loo xil saaray Yaasiin Farey si fiican u dhageyso asiga ku dhahayo Yaasiin Farey ku dhahayo aniga la ii xil saaray taliyahane oo Fahad ahna wadanka uu ka maqnaa bal aan fiirino Yaasiin Farey wax oo dhaho you be the judge oo waxa la leeyahay ama la sheegay ama la maqlaayay horta waxa runka gabadhay maqanta inta kale oo been ma yaro ayaga isku marqaati furay beenta ma yaro gabadhan 26 Juun ayaa u dambeysay waxaana la tabay oo baaritaan la sameeyay oo la isku wareeray oo muddo la shaqeynayay annagu siyaasadeynta iyo banaanka waxa ka socda ka hor hay'adda waqti badan gelisay gabadhan inay dalka ka baxday inay meel ay laga watay iyo meel ay martay cid og habayraatay oo jirtaa ma jirto kaliya inay gabadhu maqan tahay baaritaan la sameeyay xogta la helana ay heeday inay afduubay waa aragteen wuxuu Fahad yiri Fahad detail soo haya qofka waday meesha loo waday waxaas iyo dhanka la geeyay iyo qaabka loo dilay Yaasiin Farey oo wadanka joogay oo warbixinta bixinayay sidoo sheegayo waxba kama ogin ma naqaano cid waday meel loo waday ma ka warhayno saasoo leeyahay keerun sheegayo midaa been sheegayo maybe labadaba beenay sheegaya you be the judge xaruntu ma leedahay iyo meesha soo ma lahan CCTV camera soo ma lahan oo computer ka shaqeysa waa maasata horta way leedahay iyo say u shaqeyso iyo intii ka qusaysa kiiskaas asagoo dhameystiran oo documentary oo gal file ah ayuu wuxuu yaalaa cid rabtay inay ogaato maxkamadda ciidamada gacanta ku hayso taliyaha cusubna uu hayaa marka faahfaahin inaan ka bixiyo marrabo meeshaas sida Yaasiin Farey oo qiranayo macluumaadkaas waxaa lagu wareejiyay Mahad Salaad waa isla qofkii ay leeyihiin dilku ka mas'uul yahay oo leeyahay Fahad Yaasiin macquul ma tahay gal dacwad in loogu wareejiyo qofkii dilaaga ahaa oo dadka Soomaaliyeedna iyadoo loo sheegin la sameeyaa arrintaas oo hand off la suubiya suuragal mid la tahay you be the judge waxaan ahayn asxaab waxaan ahayn shaqo wadaag
mana aaminsani aniga inaanu ii sheegeen ikraan sifa lagu dhibaatay karo oo dowladnimada gudaheeda lagu dhibaatay karo aniga aan ogahay ma jirto waxaan rabaa marka inaan bulshada aan la wadaago inaysan waxa la sheegayo inaysan waxba ka jirin oo marka laga reebo inay gabadhii in la waayey oo la leeyahay iyo inay xubin ka ahayd xubnaha firfircoon hay'addan ugu dambeyntii wuxuu ku soo gabagabeeyey yaasiin farey oo ahaa qofkii dacwada haayay qofkii waddanka joogay qofkii lagu aaminay nisa qofkii uga dambeeyey nisa fahad yaasiin wuxuu ku leeyahay number 1 gabadha waa isla shaqaynayne xubin firfircoon ay ahayd sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan la isla dhexmaraayo oo dhahaya dowladda ayaa ka dambeysay waa qalad waxba kama jiraan wuxuu 100% saarayaa shabaab meeluu ku sheegay ma lahan yaasiin farey 4 beriyaa ka soo wareegatay xilliga uu bixiyey waraysigaas marka adiga fiiri 2 qofood oo nabadii nolol iskula jirtay oo isla soo shaqaysatay oo isku badbadashay nisa in warkooda oo saas u kala bedelnaado macquul ma tahay ayagoo weliba eedeynayo madax kale beenta waa dhankooda warka ayagoo ku soo noqonaya maantane recording ayaa jira adduunyada beentii hore ma jirto qof kasto haddii oo wax record ka tago ama qoraal ama video sidaan oo kale ayaa maxkamadahane anigoo shakhsi ah haddaan samayn karo saan maxay idinla tahay dadka suubiya journalismka dadka suubiya maxkamadaha looyarada maxay samayn karaan ka badan ay samayn karaan waxaan u sheegayaa in dadka Soomaaliyeed indhooda furan yihiin aanan been loo sheegi karin almino warbixinada markaas saas oo kale u bixinaysiin waxaad kula talinayaa future-ka in aad isla wada hadashiin oo aad dhahdeen maxaan dhahnaa sheekada noocee u dhisnaa beenta dhinaca u wadnaa sababtoo ah 2 been wadiin waa yaasiin farey iyo fahad yaasiin labadii beenna way isku dhaceen annagana waa soo bandhignay waa sidaas iyo nabadgelyo you be the judge salaam alaykum